imise saac ayaan isticmaalnaa moobilkeena mise oo ma xadidna isticmaalka taleefankeena. Waxaad moodaa nolosheena inay u xirxiran tahay moobilka amaba aaladaha social media sida applicationada Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok iyo sidoo kale Twitterka. Ogow, social media waa seef labo af leh. Waxaad ka heli waxyaabo wanaagsan iyo waxyaabo xunba. Mar walba waxaad jeceshahay inaad aragto kommentiyada laga soo bixiyo postigaada. Waxaad ogaataa waa inaad xadidaa isticmaalka moobilka. Dadka qaar isticmaalka moobilka waxa uu ka gaaray ilaa xad ay isticmaalaan habeenkii saqda dhexe. Subxaanallah, subaxii waxa uu jaamacadda ama iskuulka imaanaya isagoo daalan. Waxaad arkaysaa xiisadaha dhexe isagoo hurdoonayo ama ku dhahayo waan ku caajisay xiisada. Markaad weydiiso waxa uu ku leeyahay xalay baan dhafray. Subxaanallah, Allah ha ina cafiyo dhammaanteen. Walaalkay, walaashay, kuma lihi ha isticmaalin moobilka. Isticmaal laakiin yaree. Dadka qaar waxaad arkaysaa iyagoo ka cabanaya madax xanuun joogto ah, warwar fara badan, dhabar xanuun, sidoo kale indho xanuun joogto ah. Waxa uu ku leeyahay hurdo igu filan ma heli. Sidee ku helaysaa hurdo kugu filan? Waayo adigaa bis cadaabaye. Walaalkay, walaashay, ha isgelin cadaab uusan alle ku gelin. Waxaad ogaataa inaad hurdo kugu filan waa caafimaad. Jirkaaga ayay caafimaad u tahay, maskaxdaada ayay caafimaad u tahay, inaad jir ahaan u kortaa ayay caafimaad u tahay. Aad iyo aad ayay muhiim u tahay inaad hurdo kugu filan habeenkii. Waa inaan isweydiinaa waqti ma siinaa inaan quraanka alle akhrino. Waqti uma helnaa inaan salaadaha waajibka ma ahee salaado sunno dheeri ah inaan ku darno. Waxaa dhacda mararka qaar inaan bobsiino salaada maxay si aan ugu raaxaysano sariirta ama aan u isticmaalno moobilkeena. Balse markaan alle u tagno maxaa samaynaynaa? Taasaa xaqiiq ah. Salaada waa bobsiinaa si waqtigeena aan ugu qaadano social media. Balse taa beddelkeeda samee. Waqtigaada ku qaado salaadaha. Moobilkaagana isticmaal. Sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan samayno waqtiyo u gooni ah oo aan isticmaalno moobilka. Bal fiiri waxa dhici doona. Alle waxa uu ku siin doonaa caafimaad buuxo. Alle waxa uu ku siin doonaa baraka. Alle waxa uu ku furi doonaa albaabo fara badan. Madax xanuunka faraha badan xitaa wuu ka yaraan doonaa. Walaal, yaree isticmaalka moobilka si maskaxdaada ay u korto. Alle waxaan ka baryayaa in dhammaanteen uu noo wada naxariisto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.